maadaama aanu ku guda jirnay khawaariijta dhibaatadeeda iyo waxyaalihii ay bulshada ay u geysatay imaam masjidka Daarul Hijra magaalada gobolka Minnesota Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo 17 sano la soo dhaafay aad uga hadlayay dhibaatada uu ku hayo khawaariij shacabka Soomaaliyeed iyo hawlahaasi mikrofoonka ayaan rabaa marka hore inaan ku soo dhigo Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ila soo dhaweey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سيارك مركز ساوقتك أنا وقف عيدي سنة أرنت هذا اللي وقع العلينية أو إنه ما كان بديد مدبدا على الشباب يا خوارج أو ودن كان دبعته بدن كهي للضج علمه وواجب ديني أوي وأنا واجب وطني أوي وواجب ديني أو إنه من كاسو دينتي بيكبن شيئا إلهي بيكبن أبورتان قرآن كسود الجيا كبان أبورتان رسولك أصادرنا وكبان أبورتان محوها ديجي الله وحرمه أيه بنيستان حوله يهنتدي الله وحرمه أيه بنيستان ومدي ولا الله هيد بسكهر كانون يسكدران نبت قليدي يدولة نبدي نبي هرت عجينهين مرك أنا الله ضيع الله إنه نمك أسكد عنا وواجب ديني أويه حاجة كلا وواجب وطني ومد ولبا وحيلا هذا وطن كاسو يدع أستانه iyada muxuu ahaa jiritaankeeda iyo qayb asaasi oo ah sida darteed waxa laga maarmaana wadanka laftiisu wadan inoogu noqdo wadanka laftiisu si aan horumar u gaarno inaynu nimanka ayaga meel iska saarno iyaduna waa qayb kale laga maarmaana inta markaan aan uga baxo laba kelimo koob baan rabaa inaan idhaahdo oo munaasabadan aan uga faa'iideysto waxa weeye dadkeena hadda halkan jooga waxaad aragtaan dawladdu qiimaha ay leedahay maanta meeshan aan fadhinaa markaan soo aadayna intaananu qof walwal qabay ma jiro dariiqa intaad sii socoto ayaa bam lagu dhigayaa qof walwalkaasi uu ku jiro inuguma jiro qof walwal uu ku jiro inuguma jiro intaad meesha fadhidaan oo aad xarunta shirka fadhidaan ayaa bam la idinku qarxinaya walwalkaasi qof uu ku jiro inuguma jiro walwal markaan noqono intaan sii socono bam baa dariiq iyo hawada ayaa la inoo dhigayaa inuguma jiro وفيرس أنت أسمرك مرنا هدينا نوجرين وهذا أركت مركز سين النور لهاي وحال يرى هذا قفك هدون نبض وعيه ما فكري كرو هدون نبض أي سجن هرمر ومجرو سمرك النبض داس أنا وضع قيب قادنا وواجب إنه نبض دا تاجرنا للديار لكن ما كان تاجرنا أفي أدنى أنكو تاجرنا أنا مركز أور قضبة دق ديار ربع هدو هذا مدحوينه لما برد كل ده سمراب فديو أو ديار كهلك كهجيو وحاربنا إنا دهنو sidii ay saxaabadii nabi maxamed nabiga ku yiraahdeen calayhi salaatu wasalaam oo ahayd nabiga dagaalan annaguna dagaalka waan kula galaynaa oo inaan oranin sidii ay nabi muuse ku yiraahdeen kuwii la joogay ahayd muxuu anta rabbuka faqaatila inna haahuna qaaciduun markaanu dagaalka ka qayb qaadano af kaga qayb qaadano adin kaga qayb qaadano lacag kaga qayb qaadano talabixin kaga qayb qaadano waajibkaas uu nasaari marka inaan qaadano waa laga maarmaan waajib kala muhiima oo rabana halkan baaqaan aan ka wada faa'iideysano dadkeenu Soomaali baynu waa la soo yaqaanaa nimankaas waa wiilasheeni cirka kama soo dhicin dhulkana kama soo fooricin in badan oo inaga mid ah ehri qaraabo leeyihiin marka waxaan rabaa inta la waco oo qof walba cid waxta garanay inuu yiraahdo nimanka iskaga soo bax isa soo dhiib hadda fursadan ka faa'iideyso waa jaanis weeye cafis bay dawladdu fidisay muxuu ahaa rehabilitation iyo waliba inaad dib lagu shaqo geliyo lagu shaqo abuuro lagu sameeynaya nimanka iskaga soo bax oo aynu xataa taas ka qayb qaadano ayaa iyaduna laga maarmaan oo hawshaas iyaduna hawl kale oo in sugaysa oo qof waliba uu sameeyo ciddii uu garanayso oo si uu cid u gaari karta arintaasna waa laga maarmaan weeye waxa kale oo laga maarmaan ah inaynu ku dhiiri gelino qof walba oo aan garanayno iyo dadka hadda daawanayaba nimanka inaan la kaalmaynin inaan la saacidin inaan la gacan siinin in la soo sheego waxa mar fara badan la celcelinaya waa la qarinayaa nimanka dad ba waana wax jira yaani marka laakiin qofku inuu ogaado nimanka qofkii qariya
in uu dembiga la wadaagayo mushaarakada uu dembiga qayb kala qaadanayo marka taana inaan la qarin in la soo sheego qofka waliba uu ogaado inay tahay waajib diini ah inuu soo sheego nimanka maxaa jira hadduu soo sheegi waayo uu qariyo burburkay geystaan iyo fasaadkay geystaan iyo dilkay geystaan ayuu qayb ka qaadanaya qayb uu ka noqonaya marka taasuna wax laga maarmaana weeye oo aan doonay inaan isku dhiiri gelino inta ugu dambaysa waa intan waxaa la yiraahdaa guusha waxaa la rabaa in la wada sheegto nimankan waaba laga adkaanay hadda shaka kuma jiro waxaa la yiri muxuu ah ilka dafar la saxsayo oo kuwa si cararaya hadda sadartad qof walba guusha qaybtaada ka sheega hadda oo aan isugu tagna nimankan aan isugu tagna qof walba hadda ha yiraahdo nimanka waa in la soo cirib jiro nimanka waa in la soo afjaro qof walba inuu sida ha yiraahdo ayaan rabnaa oo doonaynaa xaqiiqatan haddii waayo hore laga yaabo in dad yar ka hadli jireen hadda cabsiyo ma jirtaba yaani marka hadda qof walba aan qaybta qaadano nimanka aan isugu tagno nimanka aan iska qabanno inta ugu dambayso waxaan rabaa kala qaybsanaanta xataa fikriga aragtida aan meel dhigno inta nimanka meel iska saarayno waxaa la rabaa maamul goboleedyada siyaasiyiinta ganacsatada culimada qof waliba inuu yiraahdo waxa kale ii kaadi nabadda ayaa aasaasa nimanka inaan ka adkaano ayaa horta aasaasa nimanka aan ka adkaano markaan iyaga meel saarno wixii kale waynu isugu imanaynaa marka inaan taana aynu ku wada dadaalno walga maarmaan weeye waad mahadsantihiin jazaakumullahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii waxaan rabaa inaan bogaadiyo dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay ay ugu horeeyaan madaxdii hore tiimka ka socda xafiiska walaashay senator Ilhaan ulmada oo walaalkay Cabdiraxmaan Sheekh Cabdiraxmaan ugu horeeyo hooyooyinkeena gabdhaheena wiilasheena dhammaan dadka ka soo qayb galay way mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hal kelmad oo kooban ii sheeg waana tii aan lahaa intaan kor la aadin hoose wax ka halaysan yihiin waxaan rabnaa haddii qof uu jiro siyaasadda dadka hadda xilka ku fadhiyo mase aniga aan ka mid ahay stylekiisa mase siyaasadiisa aan jeclayn taas waxaan rabnaa inaan meel dhigano oo dagaalkan iyo dadaalkan dawladdu ay wadato oo dan noo ah xilkan wax lagu waara ma ahan waxay dhahan kursiga xilka hadda aan ku fadhinay oo kale waa kursi timijara moogtahay qofka soo fadhiiso dhaad jab ka leeyahay moogtahay marka saas amal waayo wax la fadhin doono ma ahan kursigan waa banaanaan doona marka kursigan intuu ka banaanaanayo wax yaro aragti kala duunaan way jiri kartaa laakiin waxaan rabnaa aan codsanaynaa anoo ku hadlaya afka dawladda in aan u midowno la dagaalanka khawaarijta wax kasto xun oo dalkan ama wax u dhimi lahaay mise dhibaato u geysan lahaay mise aad wax ka tabanaysaan wax al-shabaab ka xun oo dalka jooga ma jiro nimankaas marka si aruurteen aan ugu badbaadsano sharafkeena aan ugu badbaadsano dalkeena aan ugu badbaadsano aan u ogolaano ama runtii aan u helno fursad dawladeena ama dalkeena mar dambe lugihiisu dib ugu istaagi doono waxaan rabnaa inaan arinkan ii sheeg in ka codsano aad jaalidaha aad nooga wakiil noqotaan oo fariimihii isgaarsiisaan oo ii sheeg ninkii qarash awoodo qarash dawladii ku daro kii yani muruq awoodo maanta qof dalkaas haysto oo amni ah meelaha qaarkood dhibaato kuma mudan lahayn dhalinyarada wadooyinka ama ii sheeg habsiyada oo ii sheeg badaha kuma dhiman lahayn wax intaasna dhigay waa nimankaas xataa haddii dadka meesha jooga ay ahaan lahaayeen dad Soomaali xukunta mase fikir Soomaali keentay annaga aan isku dhaafsanna haday ahaan lahayd waxbay ahaan lahayd fikirkan waxa iska leh eeshida fog wax laga keenay iyo qof meesha jooga yaa xukuma dalkeena yani in qof marti ah ama musaafir ah inta noo imaado su'aal ii geliyo aniga waa ku dilayaa mas inta sameey inaan ka ogolaan inaan rabaa waxaan rabaa in ii sheeg meeshaad joogtaan sharaf ku yeelataan waxaan rabaa in meel kasto aan u safrayn inaan sharaf ku yeelano intaasna waxa aan ku yeelan karnaa dalkan oo hagaagay amni noqday dawladii oo macna yeelatay baasaboorkeena oo qiimoobay dadkeena oo aan u dacwoon karno aan dhihi karno qofka Soomaaliyeed lama taaban karo laakiin inta dhaxdeena aan nahay dad kala daadsan nimankan ay naga faa'iideysanayaan qaa'idadii divide and rule ka ahayd
waxaan rabnaa inaan ka baxno nimankan aan iska saarno kadib xisbiye iyo wixii furma iyo qofkii xil rabay qofkii mas'uuliyad rabay iyo nimankii aanan rabin sidii ugu adkaan lahayn dhaxdeena noo noqonaysa marka hoosta aan iska halino. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.